hadda koob ayaa waxaa la dhahay waxay tahay dadka caqligooda wuxuu u qaybsamaa 3 caqli hooseeya, caqli dhexe iyo caqli fayow. caqliga hooseeya wuxuu ka hadlaa oo kaliya dadka. maanta dhan waxaad arkaysaa waxay tahay inuu ka sheekeena dadka, inuu ka hadlayo hebel ama heblaaye ama qabyaalad iyo wixii la mid ah. wax kale uma taagna ama sheekadiisa uma badna ila dadka maahane. caqliga dhexe waxay tahay wuxuu ka hadlaa oo kaliya asigana dhacdo, waxaa dhacay, waxaa la soo gatay, waxaa meeshaas ka dhici doono, wax la mid ah. wax kale kama hadla, kama sheekeeyo. hadalkiisa oo dhan waxay u badan dhacdo wixii dhacay bis. iyo caqli fayow oo loo baahan yahay dhammaantiin inaan yeeshano, caqliga dhahayo fikir. maanta wuxuu ka hadlaa waxay tahay fikir, aragti, sida asiga la tahay iyo wix la mid ah. waa caqliga fayow oo fikira. mid ogow, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu siiyey waxay tahay inaad ku fikirtid. laguma siinin in dadka hadaladooda aad ku raacdid amaba dhacdooyinka ay sameeyeen inaad maantana aad uga sheekaysid. may caqliga waxaa lagu siiyey waxay tahay inaad ku fikirtid. caqliga fayow wuxuu ku jiraa waxay tahay jirka fayow. markastoo caqligaaga uu fayow noqdo gudahaaga, waxaa fayowaanaya waxay tahay jirkaaga. waxaa naqanaysaa waxay tahay qof farxadiisa, murugtiisa, hogaamintiisa, horumarkiisa asiga u tashta, asiga hormuud u noqda.